Hegra waa magaalo taariikhi ah oo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Sacuudiga. Meeshan oo ku taala dalka Sacuudiga waxaa lagu arkaa waxyaabo cajiib ah iyo raadad ku taariikhaysan xilli hore oo aad u fog. Waxaa la sheegaa in ay qabaa'il ku noolaan jireen 1000 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Halkan waxay caan ku tahay in aad ku aragtid boqortooyadii Nabatiyaanka, dhismaha qabuurahoodii waa hore oo laga sameeyay dhismo cajiib ah dhulka deegaanka. Nin la yiraahdo Romer oo ku xidhan taariikhaha dadkii hore ayaa asiga oo sharaxaad ka bixinaya sheegay waxyaabaha lagu xasuusto goobtan. Dabiiqadii qarnigii koowaad ee BC-da dad loo yaqaan Nabatiyaanka ayaa soo degay halkan Hegra, waxayna horumariyeen magaalada xilligaas. waxaa maamulayay magaalada mid ka mid ah boqortooyadii ugu weyneed ee la dhihi jiray RTS-ka afraad. dadkan ayaa goobtan ka dhisay dhismo cajiib ah. magaaladan waxay ahayd mid aad ugu muhiimsan dhinaca koonfureed ee boqortooyada Nabatiyaanka sida uu sheegay Romer, waxaana la sheegay in ay ahayd caasimadoodii koonfureed ee boqortooyada Nabatiyaanka, halka caasimadoodii ugu weyneed ay ahayd Petra oo hadda loo yaqaano Urdun. dadka Nabatiyaanka ayaa isku xiriirin jiray gacanka Carabeed iyo dunida ku teedsan badda Mediterranean-ka. sidoo kale Romer wuxuu sheegay in ay boqortooyadan xiriir la lahayd boqortooyooyinka Roomaanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Faraaciintii Masar xilligaas jirtay. magaaladan ayaa dadkii hore waxay u aqoon jireen magaalo xabaaran maadaama uu ka dhici jiray dhul gariir iyo roobab aad u fara badan. dadka halkan degan ayaa caabudi jiray asnaamta. Hegra ayaa markii dambe waxaa qabsaday Roomaanka, waxayna ka mid noqotay mid hoos yimaada xukunkii Roomaanka. Hegra waa magaalo taariikhi ah oo hadda ay maamusho hay'adda UNESCO, waana loo dalxiis tagaa.